بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii tobanaad 2022 waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa shacabka Soomaaliyeed qodobada soo socda. runtii ciidamada ammaanka maalmahan waxay wadeen howlgallo ay ku sugayeen amniga caasimadda iyo daafaha magaalada. hay-adaha amniga howlahaas intay ku jiraan waxay la kulmeen meelo badan oo argagixisadu ay ka dhigteen saldhigyo ay gabaad ka dhigtaan oo gudaha magaalada Muqdisho ah. ciidanka nabad sugidda howlgallo ay sameeyeen asbuucii la soo dhaafay waxay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u degeen rag ka tirsan al-shabaab oo ummaddaani gumaadayay. meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda. marka waxaa la soo qabtay hub noocyadiisa kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen. taas waxay keentay in guryahaasi haddii waxaa noo caddaatay in dad Soomaaliyeed ay aysan ama ogaal darro ama ayagu og labadaba mid ay doontaan naqatee inay guryahaasi nimankaasi ay deganaayeen. nimankaas arxanlaawayaasha ah oo dagaalada uga socdaan gobollada oo gabaadka ka dhiganaya meelaha qaarkood waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inay guryahooda markay kireynayaan ay ogaadaan cidda ay ka kireynayaan cidda ay tahay nuuciyadeeda. waa inay tagaan waxay ku yaallaa guri kastaba degmuu ku yaallaa, degmada waaxuu uga yaallaa, waaxda laanu uga yaallaa, laantana 10 tiriyu uga yaallaa. marka waa inay xiriir la sameeyaan cid kastoo guri kiraysanayso iyo cid kastoo gurigaas leedo iska kiraynaysaba waa in la yaqaanaa cidda laga kireynaya guriga. marka waa inay tagaan ay degmada la socodsiiyaan cidda ay gurigooda ka kiraysanayaan iyo saldhigga booliska meesha ku yaallo waa inay la socodsiiyaan si loo ogaado qofka guriga degaayo nuuciyadda uu yahay. haddii ay dhacdo oo guryaha si ogaan la-aan ah kolba dowladdu tallaabay ka qaadi doontaa. hadda guryihii la qabtay waa la haayaa, gacantaa lagu haayaa, lagu qabtay dadkaas. dadka la soo qabtana waa xiran yihiin, sharcigaa la marsii doonaa, waa xukun sugayaal waaye. marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kireynayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kireynayaan. adiga marka ogaan la-aan lama rabo in qofku uu dhaco god lama rabo. taas marka waxaan uga digayaa dadka degan magaalada Muqdisho kuwa guryaha iska leh guryihiina cidda aad ka kireynaysiin waa inaad ogtihiin waxa ay tahay iyo waxa ay samaynayso. war guriga adiga aad leeday haddii lagu diyaarinayo qaraxi lagu soo diyaariyey dad ehelkaaga ah oo walaalahaaga ah lagu baabi'inayo say noqonaysaa arrintaas suuragal maaha. marka calaa kulli xaal arrintaas aad iyo aad looga foojignaado sidaas ayaan soo jeedinayaa. qodobka labaad oon rabo inaan ka hadla wuxuu yahay waxaa mar walba laga hadlaa shabaabka kuwa maalgeliya oo lacagaha siiya oo ama waxay rabaan ha ku sheegaane magacay doontaan ha lahadaane magaca maaragtay lacagaha ku siiyo. arrintaas ayadana waa arrin dembi ah oo aan islaamkeennuna aysan ogolayn in lagu caawiyo qof muslima dilkiisa in lagu kaalmeeyo qof kale. xadiis saxiix oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyo wuxuu leeyahay man acaana calaa qatli imri'in muslimin bishadri kalima laqiya allahu maktuuban bayna caynayhi aysu min raxmat illaah. sidaas ayaa xadiis dhahay calayhi salaatu wasalaam
laga warinayo xadiiskaas macnihiisa wuxuu leeyahay qofka ku kaalmeeya qof muslim ah ee walaalkiisa dilkiisa kelmad barkeed ba allaha ka dhigay waxaa wejiga looga qoraa labada indhood intuu dhexle mid naxariista ilaahay mid ka quusta waaya looga qoraa labada indhood intuu dhexle marka ka waran haddaad xoog ama xeelad ama xoolo aad ku kaalmaysa ka waran ama aad xog siisay waxa waaye nasiib darro waaye qaybaad ka qaadatay dadka muslim dadka dilkooda qayb ka qaadato marka walaalayla waxaan leenahay ha ku fududaanina kaalmaynta cabsi kasta hadday kuu geynayso waxaa lagu qaatay intii xoolahaaga ama xeeladaada ama xoogaaga ama gacantaada cid muslima aad ku dili laheeday adiga inaad dhimataa kuu roon saasaa dhaanto marka calaa kulli xaal adoo isleh ama uu shabaab wax kuu geystaa adigu ummad kale waxu geysanin calaa kulli xaal shabaabku waa dadka aaminsan qof masaajid ku jiro salaad dukanayo inuu murtadiyo la dilaayo qof masaajidka soo baxa in la dilo rasuulkan wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam iimaanka uga markhaati noqda qofkaad aragtiin asoo dukanaya ama weyse qaadanaya ama masaajid galaayo waa ogeedeen Usaama bin Zayd marka uu dilay ninkii gaalka ahaa ee la dagaalamayay ee saacad kadib markii seefta la soo kor istaagay wuxuu yiri laa ilaaha illa allah markuu yiri kadib uu dilay Usaama markaasaa rasuulka inta markii loo sheegay la yiri Usaama nin saas yiri uu dilay Usaama waxa la maxaad u dishay markaasaa wuxuu yiri Usaama laa ilaaha illa allah ya rasuulullah wuu ku gambanay markaasuu yiri qatalta bacda an laa ilaaha illa allah ma waxaad dishaa asagoo laa ilaaha illa allah kadib miyaad dishay Usaama markaasuu waa ku gambanay markaasuu rasuulka qalbigiisa ma adigu jeexdo yiri yaa ku sheegay inuu ku gambanay marka qof muslim ah adiga gaalnimadiisa ma xukumi kartid marka calaa kulli xaal dadkaasi aqoonta diineedna waa ku yar tahay hadday yaqaanaan qaar si xun u isticmaalaya ku jiro calaa kulli xaal qofka muslimka waa in gacantiisa iyo carabkiisa laga badbaadaa sidaa darteed waxaan leenahay wiilashaynu ha ka foojignaadaano waxyaabay ku halakoobayaan nin maskiin ah oo waxaan aragnay hadda ka hor aan soo qabanno wuxuu ku leeyahay $2 laysoo tuura markaasaa la yidhi meel hebel bamba ku soo tuur $2 dad dilaya asaga naftiisa u weynaya waa nasiib darro waay calaa kulli xaal qaajayaysan godkugu ridin caqli gaabninayaysan boholkugu ridin calaa kulli xaal cidna kuma ballan qaadin inaad janno gelayso adigoo qof muslima dilayso laakiin qof muslima qofki dilo inuu cadaab leeyahay aayaday ka wada buuxan waana wada ogtihiin calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gambanayso tilaabaa laga qaadayaa haddaba arrintaas la ogaado waxaan kaloo hore u sheegnay haddana aan sheegaynaa kuwa xiraayo maxalaadkooda ama meelahooda goobooda ganacsiga xiraayo ayagoo dhahaya amaraa nala soo siiyey xiri ma karaan qofkii goobtiisa xiro sow i xiro lay ahaanaysaa hadduu qunful ku dhajiyo 2 qunfulaan ku dhajinaynaa haddii ilaah yidhaahdo calaa kulli xaal arrintaasna waxaan rabnaa in laga foojignaado kuwa u dacwo tegaayena goobaha ay tegayaan ha ka foojignaadaano calaa kulli xaal garsoorkaynana waa inuu noqdaa garsoor cadaalad ah oo wuxuu garsoorkayna go'aanada u gaaray hadday cadaalad yihiinna hay-adayna amnigu waa inay noqdaan kuwii fulinayay aysan bidin dadkayna inaysan garsoor u doonanin meelo ka baxsan garsoorka dowladda hoos tegayay calaa kulli xaal hay-adayna garsoorkana dib ha isugu laabtaano hadday wax jiraan waxa jira iska saxaano calaa kulli xaal dadkan masaakiinta ee Soomaaliyeed ha loo cadaalad faro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu